bismillahirrahmanirrahiim kulanti wacan wanaagsan habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta maanta kuwada ugu waaweyn madaxweynaha dowladda dalka Kenya waxa uu la kulmay wafdi ka socda dowladda Sacuudiga daba maxay kala hadleen warbaahinta wararka ayaan ku soo qaadan doonaa Allah u naxariista Abwaan Sooraan ayaa geeriyooday waxaana dowladda Soomaaliya ka tacsiyeysay geerida ku timid jaajiriistii weynaa ee Abwaan Sooraan barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa dowladda dalka Mareykankana waxay ku dhawaaqday in lacag la siinayo Falastiiniyiin kadib ku dhawaaqistii xabad joojinta ahayd ee Israa'iil Falastiiniyiin madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ku shirsan teendhada afisyoon ee xandaabka xalane waxa ay kulamo kala duwan ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyana barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa waxaan sidoo kale maqli doontaan dhageystayaal madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxa uu la kulmay danjiraha midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya waxaa sidoo kale maqli doontaan dhageystayaal maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya wuxuu wafdi u diray degmada Walaweyn oo halkaasi dhawaan lagu dagaalamay qodobadaas iyo kuba kale ayaynu ku soo qaadan doonaa warbaahinta wararka maanta maalinimo Arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay 26 May sanada 2021 goordhow dhageystayaal waxaad maqli doontaan wararkii aad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay geerida majaajileysa Abwaan Sooraan Ismaaciil Sugul oo kamid ahaa jilayaasha caanka ah kaas oo ku geeriyooday magaalada Burco ee baha u naxariisto hal-abuurkii fanaankii iyo jilaagii weynaa ee Sooraan Ismaaciil Sugul oo ku geeriyooday Burco Sooraan waxa uu kamid ahaa hal-abuurada sida weyn uga qayb qaatay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed fankiisana iyo sheekooyinkiisuna ay ahaayeen kuwo fariin xambaarsan jannadii firdowso Allah ka baraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iyo imaan Allah ka siiyo ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa ka tacsiyeeyay geerida marxuumka Ilaahay ha u naxariisto waxa goor dhaweed magaalada Burco ku geeriyooday fanaankii hal-abuurkii jilaagii haldoorka ahaa ee Sooraan Ismaaciil Sugul waxaana u tacsiyeenayaa eheladiisii qaraabadii iyo bahda fanka Soomaaliyeed uu muddo dheer ka tirsanaa Ilaahay ha u naxariisto Sooraan ayuu yiri wasiir Dube weli dhageystayaal hanagala socotaan channelka wararka warbaahinta maanta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee magaalada Muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka arrimaha doorashooyinka ee ka socda xerada xalane ayaa kulamo kala duwan waxa ay ka wadaan magaalada caasimadda Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qaabilay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya haweenka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo haweenka bulshada rayidka ah kulankan ayaa looga hadlay ilaalinta qoondada haweenka Soomaaliyeed ee doorashooyinka iyo sidii loo tixgelin lahaa cabashadooda ku aadan doorashada dalka dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay hormuudka haweenka Soomaaliyeed ee ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda dalka madaxweynaha ayaa u ballan qaaday haweenka Soomaaliyeed in uu isla markaana u halgami doono sidii ay xaqa ay leeyihiin uga heli lahaayeen heerka kala duwan isla markaana uu ka shaqeynayo sidii doorashooyinka dhawaan dhacaya ay uga heli lahaayeen qondo ku filan maalinta Birita Khamiis ku beegan 27 May 2021 ayaa waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyo shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta ciidamada cirka ee afisyoon ee xandaabka xalane dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa waxa uu maanta magaalada Muqdisho kula kulmay danjiraha midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya danjire Nicholas Berlenge madaxweynaha iyo danjiraha ayaa isku xog wareysay qorshaha horumarineed ee Galmudug iyo sidii midowga Yurub u sii ballaarin lahaayeen mashaariicda kala duwan ee ka wadaan dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha ayaa ka warceliyay taageerada joogtada ah ee midowga Yurub ee la garab taagan yihiin Soomaaliya danjiraha ayaa ugu dambeyntii ballan qaaday in ay taageeri doonaan hay'adaha dowladda Galmudug asagoona dhinaca kalena sheegay in ay dhawaan ay fulin doonaan mashaariic dib u dhis loogu sameynayo kabashada dhaqaale ee Galmudug geeska kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudi Carabiya Amir Faisal bin Farhan oo booqasho ku jooga dalkaasi intii ay socdeen wada hadallada madaxweynaha iyo martidiisa waxa ay ka wada hadleen xiriirka qotada dheer ee labada geesoodka ah ee u dhaxeeya Kenya iyo Sacuudi Carabiya isagoo xusay in labada dal ay aad u daneynayaan sii xoojinta xiriirkooda horay
u socday. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u mariyay wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan bin Cabdulaziz Al Sacuud in uu xaqiijiyo Kenya sida adag ay isla markaana uga go'an tahay ballaarinta iskaashiga labada dal ee ganacsiga, amniga iyo maalgashiga si loo daboolo dhinacyada kale ee danaha wadaaga ah. Waxaan u baahannahay inaan fiirino iskaashiyo kala duwan si aan u hubinno in aan khasaarin. Waxaan uga mahadcelinayaa taageerada horumarineed ee Sacuudiga ayna siinayaan. Waxaan u baahannahay inaan xoojino iskaashigeena ganacsiga iyo maalgashiga, ayuu yiri madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha Kenya waxa uu isla markaana soo dhaweeyay ganacsatada Sacuudi Carabiya in ay maalgashi ku sameeyaan waaxda kaabayaasha firfircoon ee Kenya ee ku jira qaab dhismeedka iskaashiga dadweynaha ee loo yaqaano PPP. waxa uuna ku wargeliyay wasiirka booqashada in dalku doonayo in uu soo nooleeyo hilibkii loo dhoofin jiray wadamada bariga dhexe. Dhinaca kalena wafdi heer caalami uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar ayaa maanta gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wafdiga ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Baledogle ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda iyada oo safar dhinaca dhulka ah ay ku tageen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ujeedka wafdigan ka socda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku tageen degmada Walaweyn ayaa waxaa lagu sheegay xalinta shaqaaqadii dhawaan ka dhacday iyo khilaafka u dhaxeeya ee sababay gacanka hadalka gudoomiyaha maamulka degmada Walaweyn iyo ku-xigeenkiisa dhinaca arrimaha bulshada. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa la hadlay warbaahinta, wuxuuna mar kale ka tacsiyeeyay dadka ku waxyeeloobay dagaalkii dhawaan ka dhacay xaafado ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kale wasiirka ayaa u mahadceliyay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada iyo ganacsatada kuwaasi oo ku guuleystay inay joojiyaan dagaalkii dhawaan ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha degmada Walaweyn iyo ku-xigeenkiisa oo ku dhexmaray gudaha degmadaasi Walaweyn. Ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar waxa uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu xal degdeg ah ka gaari doono shaqaaqadii ka dhacday degmada Walaweyn. waxa uuna bulshada ka dalbaday in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan. 22 bishan ayay ahayd markii dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo xaafada Muuri degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhexmaray ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha degmada Walaweyn iyo ku-xigeenkiisa dhinaca arrimaha bulshada. Warkii dhageystayaal janalka warbaahinta wararka maanta aad kala socoteen waa naga intaas. Kulanti dambe saaxiibayaal, nabadgelyo.